الرحمن الرحيم marka koowaad aad baan ugu faraxsanahay wasiirka iyo salaashiikii kale ee wasaaraddu in maanta nala joogaan mashruucan waxaanu bilownay hadda muddo 2 bilood aan wadnay dhererkiisu waxa weeyaan sidoo wuxuu yahay 12 mitir weeyaan xagana waa 8 waa isbitaal weeyaan halkana waxa weeyaan 18 mitir buu yahay balaca dhererkana waa 12 waxa ka kooban yahay 2 dabaq ka kooban yahay hadda waxaanu joognaa foundationkii ground floor waxa ku xigi doona first floorkii waa ilaa waxa weeyaan 12 sariirood weeyaan ayuu ka kooban yahay waxa la socda serviceski kala la socday hospitaalka looga baahnaa waa la socda sidoo kale waxaan rajaynaynaa systemkii gaasta in la geliyo insha Allah oxygentii baa ku jirta mashruuca sidoo kale waxa la soo dhisay hoosta 3 mitir baa la soo dhisay ciidda waxoogaa way jilicsanayd marka waxaan qaadan go'aan ah in aad hoosta looga soo dhiso sidoo kale dusha aad baa ayaa loo buuxiyey kaliya ciid lagu buuxin wax kale lagu buuxiyey dhagixii caddaa casaa'iska lagu sameeyay si mustaqbalka uu u noqdo dhisme raandis leh ilaa haddana dhismo si fiican buu noogu socdaa halkan imika waxa weeyaan waa elevatorkii weeyaan 3 cisho 4 cisho kadib ayaa waxaan samayn doonaa inaan shubno islaabka sidiisoo kale waxaan sida first floor ko kale waxa la gelin doonaa grade baa la gelin doonaa ilaa 15 cm baa la shubi doonaa halka lafteeda grade baa la gelinayaa kale laguma diinayo shub concrete kaliya marka insha Allah hadda ilaa hadda soo socoto waan ku faraxsanahay waxaan rajayn doonaa in noqdo mid ka mid ah dhismayaasha ugu adag ee dalka laga dhisay insha Allah isbitaalkan waxa la aasaasay 2000 ayaa dhismihiisu bilaabmay wuxuu dhamaaday 2012 January markaasaa la furay oo loo sameeyay inaugurationkii ugu horeeyay waxa gacanta markaa ku hayay hay'ad NGO Talyaani ah oo ay caawinaysay dawladda Talyaanigu muddo 3 sanadood ayay wasaaradda caafimaadka la saxeexdeen inay haynayaan wixii ka dambeeyana ay ku wareejinayaan dawladda Somaliland 2015kii July markay ahayd ayay dhamaatay waqtigii ay maxaan ku dhahday ay soo gabagabooday xilligoodii ay gacanta ku wareejin lahaayeen nasiib darrada dhacday waxay ahayd markaa diyaar looma ahayn wasaaradda caafimaadku inay markaa la wareegaan marka qoladiina waxay go'aan ku gaadheen inay ka baxaan sida ayay markaa dawladda ugu soo wareegay isbitaalkii oo ognahay oo markii NGO ay ka baxaan meel ay gacanta ku hayeen oo system ka jiray oo shaqaalaha mushaharka wax walba dibadna ku ahaayeen way adag tahay inay sidoo shaqeyso nasiib wanaag waxa markaa isla markiiba la wareegay dawladdii markaa madaxweynihii hore Axmed Xamed Silaanyo oo gacanta ku hayay ayaa la wareegtay waxa loo sameeyay kab baa markaa loo sameeyay 4 bilood ugu dambeeyay markaa oo laga kabay sanadkii 2016kiina waxa lagu daray miisaaniyadda qaranka ayaa lagu daray isbitaalka ha noqoto shaqaalihii ha noqoto kharashaadkii ha noqoto wax allaale iyo wixii ku baxayay oo markaa service ko dhamina free aha sidii baa laga dhigay isbitaalkan markaa waxa weeyaan waxa gacanta ku haysa dawladda Somaliland wasaaradda horumarinta caafimaadku hoos taga service-ka uu qabtaa 70% waa free of charge cuntahan flash weeyaan waxa lagu daweeyaa caruurta da'dooda u dhaxayso markay dhashaan ama mujuqa ay yihiin haday noqdaan washinkooda ka soo hormara ilaa iyo da'da 14 jirka 9 sanadood ee isbitaalku furan yahay waxa uu daaweeyay caruur ku dhow 100,000 oo caruur ah waxayna laban laabmeen caruurtaasi 6 sanadood ee dawladdu gacanta ku haysay sanadka ugu yar waxa isbitaalku daaweeyaa 15,000 caruur ma 16,000 caruur 6 bilood ee imika ugu horeeyay 8,717 caruur ayaa lagu daweeyay isbitaalka isbitaalku dhowr buu ka kooban yahay qaybood oo ah qaybta outpatient-ka ama maxaan ku dhahay bukaan socodka iyo qaybta bukaan chiefka waxa kale oo iyagana jirta theater-ka oo aan iyagana idin soo tusi doono oo laga dhisay lacag fundraise ahayd oo loo sameeyay isbitaalka in la furay markii kuna guuleysanay wax ka dhimanina aanay jirin waxay noqotay inaan codsi u soo gudbino wasaaradda caafimaadka anagoo ka duuleena baahida taala baahidii markaana laga soo ajiibo oo 2020kii la qorsheeyo in lagu daro qorshaha miisaaniyadeed ee 2021ka laguna guuleystay lana wado imika dhinacaas qayb kale oo iyaduna noqon doonta 250 sariirood isugu jira emergency-ga qaybaha maxaan ku idhaahday ICU-ga leedahay daryeelka iyagana dadka aad u jilicsan ee xanuunkoodu aad u culus yahay farmasigi maxaan ku idhaahday lab casriyeysan isbitaalkaas wuxuu noqonayaa isbitaal la tartama adduunyada
yacnaha servisyada lagu bixiyo ilaa oxygentii inay gudihiisa ku jirto oo aan loo baahan haan la soo qaadayo ama maxaan ku yidhaahdayey mid aan oxygenta ka dhalino concentrators kan imika waxaan u isticmaalnaa waxaan ka dhalinaa dabka laakiin wuxuu noqon doonaa oxygen gudaha kaga jirta wuxuu leeyahay elevatorkii ama muxuu ahaa wiishkii la qaadaya caruurta shilicsan iyo maxaan ku dhahday shaqaalaaba de waxaan u mahad celinayaa wasaaradda caafimaadka waxaan u celinayaa dawladda Somaliland waxaan u celinayaa dhammaan in allaaliya intii ka qayb qaadatay inay suurtoodo dhismahaasi sidii maxaan ku yiraahdaa ay u suurta gali lahayd ee lagu baahin lahaa baahidaas ay u baahan tahay carruurta Somaliland waa mahadsantiin waxa maanta waxaan joognaa waa isbitaalkii Maxamed Ana Sheekh isbitaalka carruurta lagu daweeyo halkan maanta waxaan u joognaa waa hawl caadi ah hawl maalmeedka kamid ah oo aynan kormeer ku sameeyno xarumaha caafimaadka dalka u kuurgalno hawlaha ka socda eegno baahiyahooga sidoo kalena aan talooyin ka bixino si loo wanaajinayo aananu qorshayaasha qaranka ogaano halkay marayaan ku ciyaarayaan waxa ku jiri doona adeegyo badan oo muxuu ahaa dalku hadda aanu lahayn oo laga maarmi doono in carruurteena loo geeyo muxuu ahaa daweyn wadamo kale ama muxuu ahaa u baahdaan in culays dhaqaale soo fuulo wasaaraddu intan dadii u dambeysay iyadoo jira culayska COVID-19 haddana maanaan hilmaamin in la joogteeyo adeeg bixinta ka socota goobaha caafimaadka iyo tayeynteeda saasaan mar walba kormeer joogto ah ugu sameynaa intii sanadkan iyo kii ka horeeyay ilaa imika waxaanu dhismayaal kala duwan aanu ka furnay dalka oo dhan oo ha noqdaan xarumihii dhallaanka iyo hooyada ha noqdaan cusbitaallo kooban oo cusbitaalladii hore jiray ka qaadaya culayska sida labada cusbitaal aan ku sameynay Hargeysa ama ha noqdaan cusbitaallada hore u shaqeynayay oo kan ka mid yahay Maxamed Aadan Sheekh oo ka mid yahay oo kordhin iyo ballaarin casri lagu sameynayo ama ha noqoto in nidaamka daweynta iyo nidaamka maamulka iyo nidaamka isla xisaabtanka la xoojiyo arintaasna waxa loo sameeyaa waa in bulshadu ay hesho adeeg caafimaad hufan bulshaduna cashuurta laga qaadayo ee hooyada suuqa fadhida tamarada iibinaysa ay bixinayso inuu noqoto wax ku baxda meeshii saxdii oo hooyadiina wax u tarta oo ilmaheedu maanta marka halkan la keeno uu heli karo adeeg caafimaad hufan adeeg caafimaad bilaasha oo muxuu hagar la'aana taasuu yahay inaga hawsheenu u socono ee isku kaashanayna waxa naga go'an inaanu mar walba wasaaradda caafimaadku ay joogtayso in qarankan ay ugu adeegto wixii loo igmaday oo inay bixiso caafimaad dhameystiran dheelitiran jaban qof kasta heli karo marka soo heli karo waan ognahay waa arrin adag laakiin waan halkaan heegsanayno waa meeshaan u socono waxaanu aaminsanaynaa dariiqii saxdii ku taaganahay waanu mahad celinaynaa doctorada aad baad mahadsantahay iyo shaqaalahagaba run ahaantiina markaan eego cusbitaalkan uu ka tilmaamay cusbitaallada kale oo deganaanshaha iyo nidaamka iyo qorshaha iyo nadaafadda iyo shaqaalaha waxay muujinaysaa inuu jiro nidaam iyo qorshe iyo muxuu hanaan shaqo oo isku dubaridan oo u baahannahay in cusbitaallada kale dalkuna ay wax ka bartaan waxaan isku day doonaa in aqoon isweydaarsi iyo wada tashi aad yeelataan hadii la yiraahdo aad baad mahadsan